عجيب توجو أجي هنا وتوجي هاي خائنك وأجي هنا وخائن هاي بني آدك طمعي سينو بدنيه هو أجي هاي قف كستعلده كجرت وأجتها ما أقبل ما أقبل ما إنكره إلا بخيلك إنه بخيل يهاي ما أوج أذوق لي بين هاي سببته سايكولوجيا مركو وحكو سينا يا بخيلكو انت يرو كسينا يا وحوين ونفتك سوقويا وأكتيسك تهاي دينيا وأركتس بخيلك لو فوقيه marka ha isku dayin ina maanta dhan qof bakhiil ah ama taamkiisa ka bakhiilaayo ama mas'uuliyadiisa ka bakhiilaayo in maanta dhan isku daydid ina badashid arintani waa arin basiiro u baahan iskumana arko bakhiilku inuu bakhiil yahay adigu kula yaaban yahay waxaan yar u siiyay waxa u qadarin weysi ugu markaan saas ku leeyahay dad badan oo waxa jiro jecel inay bini aadanka xoolo ka qaataan ana markasta waxaan dhahaa qof bakhiila iyo qof xoolo ka rabo way isku egihiin ama qof tuugo rabo inuu wax ka qaato hatta ha noqdo naaga qabtidan ma ninku qaba may fahamtay haddii dantoodii ka waayeen bakhiilaad ay ku leeyihiin dadkaas yaan loo dhaxgelin qofka bakhiilka qabo qofka bakhiilka ah maaha qofkii ma taqaan xaqii ka soo bixay gurigaas biishay wax ali waxaan rabay ii sameeyo ziyaado uu asiga rabay ka waayay kugu dhibaaya qofkaas waa bakhiil ma dhihi karo marka dadkaasi tani hadda meesha isku soo urjinin say bini aadan kale ay rabeen inay wax badan ka qaataan markay wax ka waayaan okay bakhiilata aan wax ku siiya maxamee yaa ku yiri aqligan la ahay to begin with dadkaas waa xadkooda in la istaajiyo rabaan xuquuqa ayna ayaga ku soo dhibtoonin inay qof kala qasab uga qaataan basically because ama naag la qabo waaya ama nin maaragtay naagtiisa wax ka rabo waaya fahan bakhiilka runta xaaladiisa waa xaalad adag aan dhici karin inay isbedesho tuugnimada uu ka soo laaban karaa maxay hadii sheegeen khaainimada waa laga soo kalama baqiilnimada waa qof ahaanshadiisa ku jirta iskumana arko qof qalad ah iskuma arko daa'iman waqti lagu dhuminayo mala baqiilka waa cudur aad iyo aad aan basiiro lahayn waliba diinteena meesha ka istaagsantaa aragteen laakiin marraba marka subjectigan aan ka hadlay dad badan oo jecel xoolo qof inay dhacaan ama u guursadeen xoolihiisa maaragtay waa aragteena umaleyna nin waayeelo xoolo leh cid dhan oo tuuga u soo fariisanay gabaray siinayaan maxay ku falayaan waa u jeedaan duqa maaragtay godkii asiga taaka u dhaxaysay gabadhan yara la xoolo lagu dhaxaya umada dhan way u joogtaa xaalad la wada yaqaan waay maba cuni doontida aan ku noolaada waay gabar maskiin oo nolosheeda soo dadaashay waxa lagu leeyahay quruxley sharaf cizi baba kana taa laga dhaadhacsiina wajigan inuu waalidka u egyahay waa u jeedaa niyaho gabadhan weyn waxa uga dhaadhacsiinaysid arintan waa is ogtahay ya waxaan way ku soo dhibteetay aan balaash ku qaata way aan cuno marka dadkaas arin bakhiiliye ku soo hoos dhuumani waxay yihiin indhaha laga saaro waa tuuga sharciyeysan naanta dad badan ay xanaaqi doona marka laakiin bakhiilka runta xal ma laha waqtina yaan la gelinin maaragtay isheeg waa loo duceyn karaa kaliya waa qofka kaliya oo xoolihiisa inuu shaqaysto ka gaajaysan maalintuu dhintana laga faa'iido adduunkana sharaf uuma jirin ilaahay agtiisana wax uma yaalaan bakhiilnimadu waa cudur aad iyo aad in laga coodi bilaysta la rabo laakiin badana bakhiilka runta lama fahmaayo dadka tuugada waxay ku soo hoos gambanayaan qofka bakhiilka qofkan bakhiil waay qofkan wuxuu rabay ma siinin dadkaasna xadkooda hal la istaajiyo bakhiilkana hal loo duceeyo. Assalamu alaykum.